5 qodob oo waalidku ku horumarin karo waxbarashada caruurta. Halkani waa deefsame iyo anigoo Ahmed Deef. Sida caadiga ah waxa ugu badan ee waalidku ku fikiro xilliga uu ilmihiisu ku guda jiro waxbarashadu waa in uu noqdo arday waxbarashada ku fiican oo ka dhex muuqda ardayda dhiggiisa, isla markaana tacliinta uu baranayaa ay noqdo mid uu mustaqbalka ku intifaacsado noloshiisa. Laakiin nasiib darradu waxa ay tahay in inta badan ay waalidka ka khaldan tahay hanaanka ugu fiican ee uu ilmihiisa uga caawin karo in uu noqdo arday waxbarashada ku sarreeya. Hormadan waxaan daawadayaasha ugu soo koobaynaa dhowr arrimood oo ay khubarada waxbarashadu sheegeen in ay fiican tahay in waalidku uu sameeyo si uu ilmihiisu u noqdo mid waxbarashadiisu fiican tahay. In qalbiga loo dejiyo. Waa in waalidku ku dadaalo in ilmihiisu uu mar kasta ku jiro jawi aanay ku dheehnayn dareen ah in uu dembi galay ama shucuur cabsiyeed oo uu ka qabo in lagu ciqaabayo gaf uu sameeyey. Shucuurta cabsida ah ee ilmaha ku beerantaa waa caqabadda ugu weyn ee ka hor istaagta in uu waxbarashada guul ka gaadho. In tamartiisu mar kasta sarayso. Qof kasta waxaa ku abuuran tamar aad u badan, laakiin waxa ay u baahan tahay kulaylkii iyo dhiirigelintii qarxin lahaa tamartaasi si ay qofka u anfacdo. Suurtogalna maaha in aynu nolosha guulo ka gaadhno innaga oo aan tamartaas ka faa'iidaysan. Haddaba waxa ay khubaradu kula talinayaan waalidka iyo guud ahaanba qoyska in ay dhiirigeliyaan oo ay firfircooni joogto ah ku abuuraan tamarta ku duugan ilmahooda ardayga ah. Iyo in ay si joogto ah kor ugu qaadaan hamigiisa, higsigiisa iyo riyadiisa, una tilmaamaan jidka haddii uu ku socdo ay suurtogal tahay in uu dhaqso ugu gaadho guusha uu rabo. In xidhiidh fiican uu la yeesho dadka. Sida caadiga ahba in qofku uu xidhiidh fiican la leeyahay dadka kale waxa ay ka mid tahay tiirarka aas-aaska u ah in qofku uu shakhsiyan guul uga gaadho nolosha. Waxaa jirta aaminsanaan qaldan oo ay qoysaska qaar qabaan, taas oo ah in ilmuhu aanu u baahnayn xidhiidh bulsho iyo in saaxiibbo uu yeeshaa ay keliya wakhtiga ka luminayso, saamayn tabanna ku yeelanayso waxbarashadiisa. Laakiin khubaradu waxa ay hoosta ka xariifeen in aaminsanaantaasi ay tahay qalad, balse keliya loo baahan yahay in waalidku uu ka shaqeeyo sidii xidhiidhka bulsho ee ilmihiisu samaynayaa uu noqon lahaa mid caafimaad qaba, kuna eeg xuduudka ku habboon da'diisa. Cunto caafimaad qabta oo la qaato wakhtiga ku habboon iyo xaddiga ku habbooni waxa ay ka mid tahay uriyaasha ugu muhiimsan sarraynta waxbarasho ee ilmaha. Mar kasta oo uu ardaygu helo cunto ku filan oo leh uriyaasha iyo maadooyinka cunto ee ku habboon caafimaadku waxa ay kor u qaadaysaa firfircoonidiisa, habsami u shaqaynta maskaxdiisa iyo xusuustiisa oo xoogaysata. Khubaradu waxa ay waalidka kula talinayaan in ardayga subaxdii marka uu dugsiga u baxayo la siiyo quraac ku filan oo ay ku jiraan maadooyinka iyo uriyaasha cunto ee uu jidhkiisu uga baahan yahay, borotiinta iyo faytamiinada labadaba.